السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم عن داوديال كسو دوادا وركا Somali News TV وركا waxay idin soo jeedinaya anigoo Xasan Kaaya qodobada warka aad ku daawan doontaana waxa qaybka wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo xubno uu hogaaminayay ayaa boqolaal shacab waxa ay kula hadleen fagaara ku yaala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. hanti dhowraha guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa markii ugu horeysay waxa uu xaqiijiyay wararka sheegaya in la jabsaday xafiiskiisa. xildhibaanada maamulka Hirshabellena waxa ay muddo ku siman 24 saac u qabteen inuu ku hor yimaado golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle madaxweynaha maamulkaasi. xubno uu hogaaminayay wasiirka biyaha ee Somaliland waxa ay gaareen deegaano ay ku sugan yihiin dadka abaaraha ay saameeyeen ee gobolka Sool. ciidamada AMISOMna waxa ay dad rayid ku dileen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobada kale aad daawan doontaana waxa qaybka Soomaali laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa doorka ku daawan doontaan u diyaar garooba.